كبيلهان مجرتو من النهيم مثلات عن كل هاي قرنك حق والبسيطة قيبها كلا دوان إيش شغالها الدولة معلمينتا إسكدوياشة تلياشة إذا ماذا يردمان حلك كلا دوان إن باشا علي عثمان حسبي أي قرب صار لليدا هاي أو ما أنت سجارة يقول محارة عيمن تايوجو حرنت عدكيدو beesha cali cismaan ee jibriil nuse degtay gobolada awdal salal iyo sidoo kale Itoobiya maalmihii ugu dambeeyay shir uu ka socday magaalada Harare ee gobolka Salal shirkaas oo ahaa mid beesha ay ku lafaguraysa mustaqbalkeeda siyaasadeed falanqayn dheer kadib wax garadka dhalinyarada haweenka iyo sidoo kale duqeytada beesha cali cismaan ayaa si wada jir waxay ku dhawaaqeen go'aamadii shirkaasi ka soo baxay waxaan halkan ka shaacinayaa anigoo ah aqalka guud ee reer cali cismaan muumin daahir cilmi cabaade waxaan halkan ka shaacinayaa إن باشا علي عثمان ولا تشي إيو ولا هذل إيو إسلا حساب تنكبعدي إن يسو صارتك قعان كهالكان كدواق الدونو باشو وحي ما أنت شاعنا يسا إن مركا كوباد أي سو دوين يسو شريتانكا جمهورية سوماليلاند إن يسو دوين يسو doorashada xilliga doorashada xisbiyada qaranka xisbiyada doorashada ku jira heer madaxweyne sida xisbiga kulmiye xisbiga wadani xisbiga ucud beeshu xagga doorashada iyo xisbiyada way soo dhaweynaysaa waxay beeshu shaacinaysaa maanta aanan sheegayaan afkii beesha ku hadlaya inay beesha cali cismaan حسبي أي قرب صار لليدا هاي أو ما أنت سجارة يقول محارة عيمن تايوجو حرنت عدكيدو إن جرين إن يقوم مذي سنتاي صدح ذا حسبي بقى أين الله حساب تمدونتو كل حساب تنكيدا يدنا هباشا وحكا قبنا يا أباهن عدكيدا إيه باشو iyaduna wax waja codkeeda iyo maxaa raadada danaheeda ka la xiriiri doonta hadii Ilaahay yiraahdo salaamaya dhamaan beesha cali cismaan inta halkan joogta iyo inta maqanba haweenkooda iyo dhalinyaradooda iyo cuqaasha waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh alaykum salaam wa rahmatullaahi waxaan halkan iskugu imanay beesha cali cismaan ee degta gobolada awdal iyo salal wada tashi aan yeelanay oo halkan iskugu imanay beeshu markii ay wada tashi yeelatay dadka waxaan ku yiraahdaan odayaasha iyo caaqilada iyo dhalinyarada iyo ururada haweenka iyo ururada dhalinyaradu waxay isla garteen oo soo saareen siyaasadda maanta Soomaaliland ka jirta inay soo dhaweeyaan guud ahaanba waxa kale oo maxaan ku yiraahdaan ay isla garteen inay muqaddas tahay jiritaanka iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland beeshu waxay isla garatay in siyaasadda Soomaaliland aynan cidba u xaglinaynin oo cidba si gaar ah ugu tiirsanaanaynin ee ay dhamaantoodba saddexda xisbi qaran ay beeshu ay xor u tahay waxaanay beeshu ay codkeeda siin doontaa raaci doontaa ciddii ay danaheeda beeshu ka dhex aragto isna waafaqaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku raacsanahay oo ka midaysanahay codka ay odayaashu ku hadleen iyaan isku raacsanahay haddaan beesha reer cali cismaan oo macnaha ka tirsan gobolka Salal sidaasaan isku raacsanahay ninkii kolla dawladda dadku waxbuu uga baahan yahay marna iyadaa dadka wax uga baahan xusbigii aan isla qaadano ee wax ka qaban kara baahida beesha iyana nakuna wax u qabanaynaa asbiyada waxba dan gaar ah kama lihin dadka baan uga midnahay kii danta beesha wax ka qabta annagu waan raacsanahay waxa weeye sida ay yiraahdeen madaxdu ay yiraahdeen iyaan ku raacsanahay wax gaar oo kaleenahayna ma jirto
waxa ay ku yiraahdeen arrinkoodaas aan ku raacsanahay waa salaam waxaan leeyahay inamada ay sida yiraahdeen banana ku raali ka nahay odayaashayada ay noogu taliyeen ayna yeeleen ay ku hadlayaan marali iyo barkanahay qaasha iyo haldoorka bilweynta Cali Cismaan Kabaarig madax beelaha Jibriyoonis deegaan ahaan degan Soomaaliland Itoobiya iyo Djibouti si gaar ah gobolada Awdal iyo Salal ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay muhiim u aragtay isla markaana markii ay la tashi badan oo ay beeshu dhexdeeda ah la sameysay qaybaha kala duwan ee bulshada sida ururada haweenka dhalinyarada iyo oday dhaqameedka beeshu waxay muhiim u aragtay ayna go'aan ku gaadhay qodobadan hoos ku xusan in la iska dhib istaago madax banaanida iyo jiritaanka Soomaaliland meel maaliya nafa in la baadi goobo matalaada ay beeshu ku leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliland sida aan ku wada ognahay dhismaha qarankeenu waxa uu ka kooban yahay qabiilo iyo qolooyin kala duwan waxa mideeya iyo waxa isku hayaana uu yahay qarankan ka beel ahaan ma jirto mana lihi matalaad aan ku leenahay qaranka xaq walba sida qaybaha kala duwan ee shaqaalaha dawladda macallimiinta isku dawayaasha taliyaasha ciidamada iyo dhammaan xilalka kala duwan xilalka qabiisa kala duwan xilalka oo ku xidhnaan kara qalinka madaxweynaha iyo xubnaha kale ee wasiirada matalaada iyo shaqaalihi ay beeshani ku lahayd qarankeena haba yaraatee ma jirto muddadii 30 sano iyo dheeraadka ahayd sida awgeed waxay beeshu isla garatay in la baadi goobo lana raadiyo sida ugu degdeg badan loona helo sidii qarankan uga dhex muuqan lahayd beeshu in la adkeeyo wada noolaanshaha iyo nabadgelyada beesha ay la leedahay beelaha kale ay daris walaaga yihiin dhammaan